السلام عليكم كلتو عن وناكسن meel kasta aan ku joogtaan soo dhawaada mowduucan kooban waxaan ka hadlaynaa saddex calaamadood oo lagu karto ama lagu ogaado in qofku leeyahay cudurrada ku dhaca ama asiiba kaliya calaamada koowaad waxa tahay in qofku isku arko kaadidiisa markaa badata mararka qaarkood sidoo kale yaraata soo kale waxa kamid ah calaamadaas in midabka kaadidu isbedelo mararka qaarkood waxa lagu arki karaa in dhiig ama sidoo kale uu dhiig soo raaci karo waxa kale isla calaamada kamid ah in qofku yeesho xanuun xilliga qofka markaa kaadida soo dhaafso isla markaana waxa lagu arki karaa sidoo kale in markaa qofku uu dareemayo qodobka labaad wuxuu yahay in qofka lagu arko barkaas wuxuu ka imanayaa cagaha iyo sidoo kale wejiga oo kale in lagu arko maadaama aan qofka markaas sax kaliya soo shaqeynay isla markaana aan biyihii jirka laga saaray iyo sidoo kale waxyaabihii la socday sida cusbada oo kale qodobka saxaad ugu dambeeya wuxuu yahay in qofku dareemo daal daro ama tamar daro maadaama ay sidoo kale ay hoos u dhacayaan ama yaraanayaan unugyada casaa dhiigga oo kaliya qayb ka yihiin samaysankooda waxa kale oo qofka lagu arki karaa daal daro dalkaas wuxuu ka imanayaa maadaama suntii waxyaabihii markaa toxinska ku jiray dhiigga qofka aan sax markaa jirka looga saarin taasina keenaysa qofka lagu arko daal fara badan tan kula dambe nabadgelyo